بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي الكسور هذا برنامج كيف فقدات عيارها عاو وحنا كنا نقول هنا برنامج خاص وأن كسور بنيجي نوريسي أن ليه لأني إنجنير بانا عبد الله علي حقيقة جود حريرك كوباد كوليجا الصومالية إنجنير بانا وهو وقت بدنا لسه شقيي كوباد كوليجا الصومالي باسكتبول يلوس شقيي wuxuuna ahaa qof ku nool waddankan Ingiriiska waqti badan oo muddo 20 sano ku dhow oo wax ku bartay waddankan Ingiriiska wuxuuna ka shaqeeyaa London Underground subway-ga waddankan Ingiriiska ee magaalada London ayuu ka shaqeeyaa dhinacan basketkan wuxuu u shaqeeyaa si volunteer oo waqtigiisa oo uu hayo uu la shaqeeyaa marka ugu horeysa engineer bana wuxuu ahaa macallimiintii basketka ee bilaaway markii ugu horeysay Soomaaliyeed ee qurba joogta una kaxeeyay markii ugu horeysay markii ay tageen waddanka Kenya si ay u matalaan waddanka Soomaaliya ka bacdi markii burburka dhacay waqti dheer ayuu ku dhex jiray basketkan waxyaalo aad u fara badan oo taaban karna oo soo qabtay markii ugu horeysay engineer bana ku soo dhawow university fi qastan faaqada ciyaaraha Cabdinaasir waa salaamantahay marka hore waan kaaga mahad celinayaa fursadda caawimaad qaaliga aad siisay inaan markaan ka hadlo TV Soomaaliyeed aan maasantay aad mudan injineer baan su'aasha ugu horeysa waxay noqonaysaa wax inoogu sheeg taariikhda sportiga iyo waqtiga soo gashay wax inoogu sheeg taariikhda sportiga horta aniga basketballka waxaan bilaabay anoo da'yar laakiin as a professional waxaan ciyaarihii ugu horeeyay ciyaaraha ciidamada sanadkii 1985ka waxaan u ciyaarayay ciidanka deegaanka xamar oo markaa aniga gurmadkayga lagu qoray kadib waxaan ciyaaray ciyaarihii degmooyinka sanadkii ku xigay 1936 oo aan u ciyaaray degmada Cabdilcaziz sanadkaas oo aan ku guuleysanay koobkii degmooyinka ee gobolka Banaadir isla markaasna waxaa anagoo lix ah ciyaartooyda waxaana loo magacaabay ciyaartooydii markaa loo xulayay gobolka Banaadir nasiib daro macna kama noqon dadkii markaa ugu dambeeyay 10 ciyaartooy ahaa sanadkii ku xigana wadankii ka soo tagay oo markaa waxaan soo baxay barasho okay gormo soo biirtay maamulka kubadda kolayga ee xiriirka Soomaaliyeed ee ka dhisan qaasatan dadkan qurba jooga gormo soo biirtay runtii waxaan dhihi karaa ilaa sanadihii 3 sano ugu dambeeyay ayaan ku soo biiray maamulka xiriirka kubadda kolayga Soomaaliyeed taasoo ka dambeysay markii ciyaarihii saadiga sheegtay ugu horeeyay oo qurba joogtada ahaa kubadda kolayga aan geynay waddanka Kenya markaa wixii ka dambeeyay ayaa waxay ii magacaabeen inaan ka mid noqdo anoo markaa macallin ku xigeen ahaa inaan ka mid noqdo gudoomiye ku-xigeenka kubadda kolayga dhanka arrimaha dibadda okay waxay iga sheegtaa waqtigii ugu horeysay oo saan hor u sheegnay ka qayb gasheen ciyaarihii waxay ahaayeen Kenya ka dhacay ka qayb gasheen 2006kii Soomaaliya ka waran sida loo qaban qaadiyay oo qayb gasheen waxyaalaha ka soo hoydeen runtii sababtan ugu qayb galnay ciyaaraha horta waxay ahayd waxa ka horeysay ciyaar waxaan jeclahay inay tahay ciyaarihii islaamka ahaa oo ka dhacay Sacuudiga ciyaarahaas oo aan ka daawaday TV-ga inuu ahaa jeclahay Al Jazeera Sport ciyaarahaas oo runtii ciyaartoydii ka timi Soomaaliya markaan isku eegnay ciyaartoydii maartay wadamada kale runtii macnaha waxa moodaa in aad loo gacan sareeyay runtii waa dareemi karnaa dhibaatooyinkii markaa Soomaaliya ka jiray iyo dagaaladii in ciyaartooydaasi ay kala heer noqdaan soo la socoto even hataa maartay ciyaartooyda waxa loo baahan yahay in macnaha mentally iyo physically inay maartay diyaar u yihiin sax wadankii oo dagaaladii maartay ka dhacay macnaha su'aalaha wax ka soo qaadan kartaa garoonka markaas ay ku ciyaarayeen Soomaaliya ciyaartooyda ka imaanaysay waxay ahayd outdoor ciyaartooyda markaa ka ciyaaraysay ciyaaraha tartanka islaamka waxa lagu ciyaaray indoor marka taa waa dareemi kartaa in taas nafteeda maartay inay dhawaato keeni karto markaa kadib waxaan go'aan ku gaaray in maadaama aan nahay haweenka sportiga Soomaaliyeed kuna nool qurbaha in markaa waxaan ugu faa'iideyn karno waddanka ugu faa'iideyno haddii noqoto xag maartay technical ciyaartooy haddii noqoto xag maamul haddii noqoto xag maartay qarash ahaan
marka waxaa ii suurta gashay marka inaan la xiriiro markaa halkaan joogay gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda kolayga soomaaliyeed maxamed nuur tarzan oo taqaanaan sidii ayaan kusoo galay maamulkii oo markaa aan u fidiyey inaan diyaar u ahay inaan ka caawiyo tartamada haddii ay jiraan ciyaaro kale markaa laga soo xulo north america europe oo markaa aan soo xulno kadibna markaas ciyaarihii aan uga qayb galno inkastoo aan taxgelinayna inta ciyaartooyda soomaaliya ka imaanaysay 4 qofood aan ku talagalnay inay soomaaliya ka imaadaan si markaas u dhaco falgal oo labada micnaha ahayn ciyaartooyda oo ka imaanaysa football waddanka okay daawadayaal waxaa noqotay markii ugu horeysay in intuu burburkii Soomaaliya ka dhacay kooxdan Somali basketball ay ka qayb galeen ciyaaro under 18 ama dadka da'dooda ay ka yartahay 18 oo ka dhacay sanadkii hore waddanka Morocco oo ahaa ciyaarihii jaamacadda Carabta ciyaarahaas runtii dadka intooda badan ma ogeen laakiin anaga waa la soconay adiga iyo waxa kaloo la socday teamka dad aad u fara badan oo kamid yihiin marxuumkii Cumar Anyelo aan ka sheekayn doono ciyaarahaas ay u dhaceen invitation Sweden ku yimid maxaa ka soo qabateen bal wax nooga sheeg jiray baan runtii sida la socoto Soomaaliya dagaal badan maarta ayaa ka dhacay sportigina way ka maqnaayeen ma aysan ka qayb kala jirin ciyaaraha caalamiga ah haddii noqoto kan Africa iyo kan maarta Arab League ah marka waxaan isku dayay marka hore inaan ka dhisno xagga macnaha communicationka xiriirada dibadda oo anigu marka oo ah roolkeygi inaan xiriiradii aan la xiriirno marka aan yiraahno anagu waxaan diyaar u nahay in ciyaaraha aan ka qayb galno marka runtii markaan la xiriirnay qoladii Arab League runtii aad bay ugu farxeen oo markaasna waxay noo suurto geliyeen in ciyaarahaas markaas jiray oo ah under 18 ka ah inay nagu casumaan inaan ka qayb galno oo markaas Morocco ka dhacay sax marka sidii ayaan marka ayaan tawaabasho maarta u galnay oo marka tii hore way ka dubnay sababta tii hore waxaan runtii ka helnay caawinaad oo maartay oo nagu caabiday dhanka maartay kharashka dad doona Soomaaliya marka tan laakiin xogaa marka way ku dubneed oo runtii dadkiina maartay ma weydiin karno mar labaad marka runtii waxaan ugu noqotay struggle laakiin ciyaarihii sidii baan ugu qayb galnay okay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo qarashkaas markaan ka hadlayno inta badan barnaamijyo badan waa la sameeyay kulley adiga waxaan jeclahay inaan arrintaas aan ka hadlaynin arrimahan qarashka dabcan qarash badan ayaa ku baxa marka la tagayo dibadda dhalinyaro badan ka North America yimaadeen kuwa Europe yimaadeen inay isu keentaan tikidkoodii hotelkoodii waxaan dhan injineerman lacaganta ka yimaadaan ma lacag dawlad ingiriiska dawladaha Europe mise xiriirka lacag meedinsiya mise lacag meel ka qiimata haystaan horta runta Abdinaasir taas way jirtaa waxaan filayaa sababa horta ugu weyn ay Soomaaliya ciyaaraha aysan ugu qayb galin inta dagaalada socdeen macnaha waxa kamid ahaa xag qarashka waa big factor ay ka tahay runtiina Soomaaliya waa ujeedaan oo dhibaatooyin baa maarta ka jira xiriirada fan ma helaan ku filan Olympic kulay lacag soo gasho kulay waa lacag aad u yar marwada macnaha lacagtaas ay bilaabatay marka badanaa dadka aan marka aniga antaaga macnaha aan wax weydiisano waa dadka mujtamaca Soomaaliyeed oo ganacsatada ah sanadkii markii aan bixinay Kenya ciyaaro aan u qayb galnay waxa caawinaad fiican na siiyay Dahabshiil oo runtii qayb weyn ka qaatay waxaa kaloo jirtay inay daalo taa waxaan uga caawisay waxaa kaloo jirtay shirkad kale kuwa xawaaladaha lacagta global aan filayaa inay tahay marka qarashkii waa tikidhadii ciyaartooydii iyo xag marka la tago hotelkii iyo cunadii marka lacagta badanaa waxay ka timaadaa dadka Soomaaliyeed runtii waxaan jeclaan lahayn in ay taageero fiican maarta nagu siiyaan ciyaartii ka dambeysay aan Morocco hata hore kugu sheegay aad bay ugu dawladda sababtoo ah runtii markasta qof lacag ma weydiisan kartid sax waana ku adag tahay marka waxay noqotay aniga jeebkayga maarta qaadqaanata inaan maartay lacagaha qaarkood ka bixisid aan ka baxsho marka runtiina waxaan ciyaartaas kala weyn macnaha naga siiyay oo maarta runtii oo noo dhiirigay aan tagno waxay ahayd dawladda Morocco oo aan ka codsanay in maadaama Soomaaliya xaaladaheeda ay aad u xun yihiin inay naga caawiso xagga hotelka iyo raashinka intaan joognay waddanka Morocco runtiina aad bay noogu aqbashay
saas darteed halkaa marka waxay noqotay aan lacagta tigidda maaragtay aan iska bixin meesha ka dabartaan okay injineer waxaa ka qayb gasheen sanadkii hore ciyaarihii Olimbikada ee ka dhacay wadanka China adiga iyo marxuumka Cumar Anyelo iyo dad kale Duran Farax oo gudoomiye ku-xigeenka Olimbikada maxaa kala soo kulantay markaa meesha tagteen China wallahi horta haddaan kaga hadlo shaqsi ahaan runtii aniga horta waxay ii ahayd waxaan iloobeyn runtiina waa waxay ahayd wax loo baahnaa maaragtay in qofka bini'aadamka sidiisa maaragtay meelahaas oo kale maaragtay inuu tago soo arko waxyaalaha ka jira runtiina waxaa dareemi kara qofkii dadkii fursad u helay inay tagaan tan guud ahaan oo qaranka maadaama wadanka Soomaaliya aan matalayno runtii waxaan ahayn marka loo fiiriyo dadkii kasoo qayb galay wadamada macnaha oo ugu liitay oo meesha ka qayb galo hadday noqoto macnaha tira ahaan hadday noqoto sports ahaan waayo waxaa kaloo macnaha aan wadana kaliya waa 2 ciyaartooy marka kuleyba waxay u baahneyd in ciyaartooy la sii diyaariyo waqti hore la sii diyaariyo si maaragtay ay u noqdaan macnaha qualified markii ciyaartooygu tagaaya ama ka qayb galaya tartamada Olympic waa inuu qualified ahaadaa halka dee basketball yihiin waa inay wareega hore soo maraan oo Afrika ka soo baxaan marka jaaniska ugu fiican aniga aan dhigi karo waxay la tahay sporting individualka ah in Soomaalida maaragtay xog loo saaro sida orodada dawaasha si markaa tartamada ay u qayb galaan waqti hore inay ka qayb galaan tan oo asitiimka ahaankana waa aad bay horta macnaha uga adag tahay marka laakiin insha Allah kulleyba wax walba haddii maaragtay la isku dayo waa la gaaraa marka insha Allah maybe next maaragtay Olympic Games in Somalia ay uga qayb gasho tiro ka badan tiradii hore okay mahadsanid daawadayaal sidaan hore ugu sheegnay marxuumkan Cumar Maxamed Cumar Anyelo wuxuu ahaa maamulka tababaraha wuxuu ahaa kooxda Somali Basketball oo kubadda kolayga wuxuuna ku geeriyooday dhamaadkii sanadkii hore shilka ka dhacay wadankan Ingiriiska marka marxuumka iyo adiga waxay ahaydeen waa la socotay Olimbikada rag aad saaxiibo oo soo shaqeeyay ahayd muxuu qabtay intuu ku dhex jiray basketball Soomaaliya ku dhex jiray marxuum Cumar Anyelo hortii Cumar waa saaxiib kaliya ma ahan waa nin walaalkay kale ahaa nin sportiga Soomaaliya runtii taariikh weyn ku leh ayuu ahaa oo ilaa national team soo ciyaaray Soomaaliya runtii nin wadani ahaa jeclaa wadankiisa inuu horumariyo marka tan macalimada runtii nin wuxuu ahaa waqtigiisa dhumiyay oo ku dhumiyay inuu maaragtay wax u qabto wadankiisa aniga runtii wuxuu ahaa nin maaragtay aan saaxiibo ahayn oo maaragtay fikradan iyo hawshan maaragtay aan ku wadnay as a voluntary marka waxaan dhihi karaa Cumar waa naga tegay runtii reerkiisa iyo anaga kaliya nagama tegin Soomaalida naga tegay sax okay waxaan rabaa waqtiga aad noogu yar awgeeda Engineer Banham maxaa weydiin lahayd ama kuwaanin lahayd dadka Soomaaliyeed qaasatan dhalinyarada iyo dadka jecel sportiga inta badan waxaa laga hadlaa ciyaaraha kubadda cagta ayaa laga hadlaa Soomaaliya runtii basket aad u fiicneed marka adoo chancekan TV-ga Universal ugu siiyay maxaad halkan ugu soo jeedin lahayd dadka jecel dadka ciyaara iyo wixii laga qaban lahaa si loo horumarin lahaa basketka Soomaaliya aniga waxaan dhihi karaa horta shakhsi ahaan waxaan aaminsanahay Soomaaliya basketballka inay wax ka keeni karto runtiina adaad la socoto taariikhda Soomaaliya basketballka waxay ka gaareen heer maaragtay caalami ah xaqiiqadana macnaha basketka waa sportiga kaliya maanta Soomaaliya adduunka ay maaragtay magac ku soo jiiday dabcan waxaa noogu horeeyay Cabdi Bilo oo asiga markaa u qaaday ardadii oo runtii laakiin basketballka markay noqoto xagga East Africa iyo jaamacadaha Carabta Soomaaliya bilada ay kasoo hooyeen markaan fiirino aniga waxyaalaha ugu dhiirigeliyay inaan waqtigii basketballka ku dhumiyo waxay tahay markaan analyze gareeyay waxaan ogaaday in wax laga keeni karo basketballka marka ciyaartooyda Soomaaliyeed oo ku nool dibadda gaar ahaan North America waa runtii ciyaartooy talent ah waa inaan ka faa'iideysano ciyaartooydaas waxaan jeclahay next 3-4 years in la heli doono ciyaartooy Soomaaliyeed oo NBA ka ciyaarta quality leh marka waxaan jeclaan lahaa in ciyaartooyda Soomaaliyeed qurbaha ku nool sida macallimiintii hore ciyaartooydii hore inay maaragtay ilmahaas daada yar ay ku dadaalaan siday marka wadankooda opportunity siin lahaayeen in wadankooda u ciyaaraan
dabcan qofka asaa jooska iskale sidaad ogtihiin had markaa olympic tegayn oo kale dad ciyaartooy soomaaliya joogay oo markaa u ordaya wadamo kale xaqiiqda micnaha qofkaas waxaa laga opportunity u ahaa in wadan ordo maxamed mo saa u taqaana jo ingiriiska u ordayay waxaa kaloo jiray wiil asigana abdiraxmaan lah oo america ka socday waxaa kaloo jiray wiil asigana yidhaahdo oo ka socday sweden sharmarkuna magaciisa macnaha ayagoo wadamadooda ordaya haddana calanka soomaaliya ayay boorsada ku wateen chance dii la siin lahaa Soomaaliya taas marka waxaa ka dareemaysaa in raggaas aan soo xareyno oo janska la siiyo la yirahdo wadanka soomaaliya macnaha haddaad u ciyaari karto waa opportunity waa leedahay marka saas kale hadduu yirahdo aniga soomaaliya uma ciyaarayna waa lama qasbi karo marka in dadkaas la soo jiito aan kusoo dhiirigelino in aan siino platformka ay markaas janska u helaan in wadankooda u ciyaaraan in lagu dhiirigeliyo in soomaaliya waa ujeednaa inaan taageerno xag dhaqaale xag technical garoomada waa aragtan loojino inaan ku taageerno inaan iswalaashano صح in hal basketball aan noqono one unit one family aan noqono markaas wax walba waska hagaagaya insha Allah okay su'aasha ugu dambaysa waxa bilaabanaya kuleelihi ayaa bilaabanaya waqtiyadaas ayaa ciyaaraha meel walba laada maxaa qorshe ama meel u socotaan sanadkan intaan ku jirnaa dhamaadkiisa maxaa idin qorshe cabdinaasir horta sideedaba horta ciyaarahan xagaaga ah oo lagu qabto Yurub runtii waxaa fiican hadda ayaamahan sidoo hore ma aha in basketballka lagu soo daro footballka maarta oo kaliya maarta laga dhigin basketball lagu soo daro tan internationalka ah runtii sanad walba ciyaar ayaa jira hada noqoto kuwa jaamacada carabta ama noqoto ciyaaraha maarta Africa laakiin ma wada aadi karno waayo ma noo suurtagelayso inaan ciyaaro kasto macnaha waa jeclaan lahayn ciyaartooydu way jiraan ciyaartooydu way heli karnaa laakiin awood u maleemayo in qarashkii iyo wixii aan ka bixi karno unless aan ka helno dad sponsorna siiya dad macnaha naga caawiya xagga tigidhada xagga maarata qarashka hoteelada iyo wixii inaan helno dad Soomaaliyeed ama ha noqoto ganacsato ama ha noqoto individual ama ha noqoto maarata urur inaan helno taageero marka hadda waxaan isku dayno marka aniga hadda aan isla garanay xiriirka in aan isku dayno waxa marka aniga aan tagi karno inaan ka qayb galno marka sanadka hadda waxaan ku darsanay balaankiina inaan ka qayb galno ciyaaraha hadda carabta dhici doona July waxay ka dhacayaan Morocco waa ciyaarihii sanadka basketballka waxaan isku dayeynaa in ciyaarahaas aan ka qayb galno hadda hawsha waa bilawnay dad Soomaaliyeed xastaana waxba noo balan qaaday si wada hafshiil inay maarad kaalin xoog la ay ka qaadan doonto waxa kaloo noo balan qaaday qaran iyo kale inay maarad aan ka heli doono iyo kuwa kale hadda aan maarti tagno marka oo noo balan qaaday inaan maarad wada sameeyno si markaas maarad ay u taageeraan waayo taageer la'aan macnaha lama bixi karo sababtoo ciyaartooyda waxa laga keenayaa dibadda ciyaartooyda maarad ku sheegay ciyaartooyda oo tayo leh marka waa qasab marka inaan marka tigidhadooda macnaha iyo waxa laga yaabaa kale ciyaartii labaad maaragtay is aragii ciyaarihii labaad ee is walaalaysiga islaamka oo ka dhici doona Iran xataa inay ka qayb gashaan laga yaabo taas waa laga yaabaa san ku sheego waay aniga ciyaartooydu waa heli karnaa hataa haddaan lix ka keeno dibadda lix wadankii laga soo kaxeeyo laakiin muhiimaddu waxay tahay inaan helno tigidhadii waxay la tahay ciyaaraha islaamka oo lagu qabanayo Iran in wadanka Iran uu bixinayo hotelkii cuntadii marka xoogaa marka waa ka sii culays yaraanaya marka haddaan helno tigidhadii ciyaartooydaasi marka runtiina macnaha inkastoo maanta ay hawsha xiriirka kubadda kolayga basketball ay wadaan laakiin ma aha in kaliya in maarata ayaga lagu daayo waa in Soomaali meel walba ay joogaan ay gacan siiyaan si magaca Soomaaliya meesha loo geeyo marka waxaa dhacday markaan tagaynay Morocco waa sheeko yar inaan ku sheego runtii maarata aan u arkay cajaa'ib markaan tagnay Morocco ninkii markaa wafdigana soo dhaweeyey ayaa wuxuu noo sheegay markaa meeshii nimi wan salaamay wuxuu yiri taariikh bas baysan buu yiri maanta markaasaan ku maxaa markaas wuxuu yiri aniga codsiga waa codsan inay maarata dowladda Morocco ay naga caawiso dhanka qarashka wuxuu codsigiina markaan helnay waxaan u gudbinay madaxda shirka markaan ku jirno uu yiri aan aqrinaynay codsigiina markaan Soomaaliya maarata aan iraano ninka madaxda wuxuu dhahay Suudaan hadda markaan Soomaaliya dhahno wuxuu dhahay Suudaan markaas wuxuu yiri ma Suudaan ka wada mise Soomaaliya markaas wuxuu firmay Soomaaliya ka wadnaa
ninkaas yidhi ma Soomaaliya ciyaaraha kasoo qayb galaysa ha wax walba wuxuu yidhi waa diyaar u tahay marka taas macnaha waxaa ka dareemi kartaa in aan ay muhiim tahay in ciyaaraha laga qayb galo si wadankii meelihii calankii laga arki jiray lagu arko waxaa kaloo dhacday madaxdii oo Morocco joogtay ciyaarihii marka dhamaadan kadib inaan wada hadalnay ay noo sheegeen in Soomaaliya 1986 ka ciyaarihii markaas ka dhacay Soomaaliya ay ahaayeen tiimka ugu fiican carabta ay ahaayeen waqtigaas tiimka ugu fiican xataa waxay noo sheegeen qalabka ay wateen boorsooyinka ay wateen uniformka ay wateen the best ayuu ahaa marka waad dareemi kartaa Soomaaliya meeshii maartay macnaha ay ka taagneed waagaas hadda macnaha halkan joogo marka waa jeclaan lahaa in maartay ummadda Soomaaliyeed ay ku taakulayaan maartay sidii loo horumarin lahaa magaca Soomaaliya maartay loo geyn lahaa meelahaas okay marka kulli sababta aad u sameeynaysan waxaan dhan oo wadan jecel Soomaaliya ma jecel dan oo idinka oo qaas oo idinku wataan mala saan filay wala saa dareemi karto zoolo aniga full time ayaan shaqeeyaa 5 maalmood waxaan u sameeyaan waa voluntary qof lacag ugu siiyo malaha waa wadan ma jecel iga tahay waa waxaan wadankayga maanta aan u sameyn karo aniga wadankayga waxbarashada maanta aan heerka aan taaganahay dabcan Soomaaliya ayaan maartay ku soo bilowday ku sii marka kulli waxaan u arkaa aniga inaan maartay payback sax inaan maanta wadankayga waxaan ku targuro inaan ku taro sax marka sportiga runtii aad baan jeclaa marka I hope umarna sidoo kale u ahaa runtii waqtigiisu wuxuu u geliyay waa Soomaali jecel marka waxaan rajaynaynaa in Soomaalida kale inaan iskaashano Soomaaliya dagaal ka jira runtii waa dareemi karnaa sportiga waa second priority laakiin waxaan filayaa insha Allah future-ka sportiga inuu naga dhigo kaliya waxa kaliya maartay Soomaaliya ay ku midowdo okay وما سنت هذا وما سنت هاي داود يالكاسي وحو أها إنجنير بانا ومارتينو وهو أها استوديو يونيفرسيتي في بريغا مقالة لندن كل وحي معلومات واحد كل حريري كرتان سومالي باسكت بول أيات كل حريري دونتان برنامج كواحد قال قيب قالي عبد القادر الشيخ شري وكاميرمان كانو أها يو إديتينكو أها جبريل محمد جبريل يو عبد القاني نور iyo aniga ah Cabdi Naasir intaan hawada ku kulmi doono barnaamijkan oo lamid ah waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum haddii uu barnaamijkan ku dhaafo ka daawo safifilms.com